Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan kasii wadaynaa halkii inoo joogay oo ahayd VMWARE. Waa kan VMWARE-kii cashirka horaan u install gareynay hadda wuu igu jiraa. Waa kan hadda wuu soo kacay sidaan u ahaa. Hadda waxaan horaan ku install gareeyay Windows 7 horaa kusii jira. Hadda ku cusub baan sameynayaa si fiican idinkuna u fahantaan. File baan leeyahay new virtual machine ama halkan aan home ka tagayaa. waa kan create new virtual machine baan leeyahay. waa kan next baan leeyahay next. Windows baad dooranaysaa marka halkan Microsoft Windows baa ka dooran. halkan Windows aad ku shubaysid noocu ahaa hadda 7 baynu ku shubaynaa. 7 waan soo dooranay next baynu leenahay marka halkan waa magacii uu kugu soo bixi lahaa. waxaynu soo qoraynaaba practical hadda next store virtual disk as a single file ayaynu dooranaa. xaggan waa GB-gii oo maximum disk size waa siduu ku habboon yahay. waad ka badsan kartaa laakiin hadda aan saaban ku deysanayaa waayo ma jecli inuu hard disk badan iga isticmaalo. xaggan waxaad sameynaysaa customize hardware baad ku dhufanaysaa. waad kusii dhufanaysaa new cdd dvd. waa kan waxaad dooranaysaa markaa use iso image file ka baad dooranaysaa. halkan browse baad leedahay waxaad kasoo dooranaysaa markaa Windows-gii halkuu ku yaalaad kasoo qaadaysaa f ku yaalay. waa kan Windows 7 waan furaynaa isagii baan soo qaadayaa. hadda imka Windows 7 iso waxaan leeyahay markaa close finish ayaan leeyahay marka. hadda muxuu sameeyay Windows 7 practical laakiin ma shaqeynaya. hawshiisa waynu sii wadaynaa. power on baynu leenahay. okay start Windows. waa kan soo kacaya hadda. ka dooro buu leeyahay language-kii time and currency format keyboard-kii next. waa kan wuxuu ku leeyahay markaa install Windows activated R2 ku dhufanaysa. Windows activated setup is starting. setup-kii activated-ka waa bilaabmaya buu leeyahay. hadda waa kan ka dooranaysaa markaa. hadda mar walba waxa ugu fiican professional iyo ultimate. hadda professional baan dooranayaa. next baan leeyahay. halkan I agree to install Windows activated. waxaad ogolaanaysaa xeerarkii shuruudihii baad ogolaatay. hadda upgrade ma doonayo oo ay ku hor haddii ugu sii jiro upgrade-kaas ugu fiican tahay laakiin hadda custom baan leeyahay. waa kan hadda kan uu sameeyay next baan leeyahay marka. disk wuxuu sameeyay restarting in 8-7 seconds buu ku leeyahay. isaga restart buu socon doonaa soo kici doonaa. hadda restarting-kii buu wadaa. starting Windows waad aragtaan sidii caadi computer lagu shubay Windows 7 ayuu soo kacayaa. waad aragtaan Windows activated setup is starting surfaces. waa uu dhammaystiray. bilaabayaa surfaces-kii inuu setup gareeyo. xabadii u dambeysay. hadda waa kan
Windows activated setup will continue after restarting your computer. Hadda waad aragtaan wuu soo restart gareynayaa wuu sii socon doonaa buu kuli installationku. Hadda wuxuu ku yiri type a username, for example magac u samee buu ku leeyahay. Waxaan qorayaa searching pc buu ku yiri next. Password u samee ama hinti password ma doonayo hadda saa iskaga dhaaf. Waa kan user recommended setting kan aduu joogaa halka waad ka bedelan kartaa. Maxaad ku qoraysaa haddaad Soomaaliya joogto oo kale waxay noogu dhow Kenya. Marka hadda Kenya haddaynu halkan kasoo doorano waa Nairobi. Halkaa wada ku jirta sawirka naga siweyn lahayn marka public network oo dhammaystiray hadda. Waa kan welcome kusoo dhawow Windows 7 Professional buu ku yiri. Marka ka cabsanina hadduu waqtiyada badan hadda waad aragtaan 3 jeer buu isticmaalay soo shiday. Marka hadduu 3 jeer iyo wax ka badan bay shido waa kii kuu sheegay notice-ka uu ku siiyay notification-ka. Hadda waa kan oo dhammaystiray welcome buu ku yiri kusoo dhawow. Waan dhownahay baan leenahay. Preparing your desktop wuxuu ka diyaarinayaa desktop-keena aynu isticmaali lahayn. Kan magana keenay hadda waa kan Windows 7 si sax ah inoogu shaqeynaya. Ka refresh way shaqeynaysaa. Hadaynu doonno inaynu desktop-ka iyo wixii soo dhigno waa kan xaggan aynu ka dooraynaa computer hay kale network kaas aynu ka dooraynaa apply. Okay waka hadda inoo keenay intaan soo dooranay waxaan leenahay sort by name oo isdhaafiye computerkeeni waxaad doonto ku shuban kartaa waxaad doonto ka xareysan kartaa. Waka GB-giisu waxaa kuu furaya hadda 53.1 GB. intaasna markii hore waxay ahayd total. Waka hadda si fiican buu shaqeynayaa. Marka aad baad u mahadsantihiin. khayr fara badan sugnahay. Subscribe iyo like tana ha iloobina. khayr fara badan baan idin rajeynayaa. casharada dambena aynu la socono insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.